والله ده horta arintan dhibaato badan bay keentay waana taagan tahay qadda khaliijka iyo maamul goboleedyadan iyo muxuu ahaa arimahan wax hadda yimid weey laakiin waxa fiican waxoogaa inaan guud mar ku sameeyno sooyaalka taariikhda siyaasadda Soomaaliya in waxoogaa guud si aan meesha joognaan u nimaado dhibaatada Soomaalida inta ay ku leedahay talan Soomaaliya 60kii bay xorriyadii qaadatay waxba la wadwaday muddo nidaam dimuqraadiyad ku salaysan baa la isku dayay lagu wado waxa la gaarsiiyay axsaabtii dalku ayadoo research ama cilmi baaris aan la sameyn dalkaanu muxuu xamili karaa axsaabta uu tirada axsaabta uu xamili karo maxay tahay iyadoo cilmi baaris lagu sameyn baa 86 xisbi baa la gaarsiiyay rejiimkii ugu dambeeyay oo muxuu ahaa rayidka ah oo intaan qolada ciidanka meesha imaan 86 xisbi qaar baa 86 laakiin intaan arkay waa 86 xisbi hadda 86 xisbi dalku ma qaadi karaa wax cilmi baaris lagu sameyn waxaan ognahay madaxweynihii dalka Allah uu naxariisto Cabdirashiid Cali Sharaf Maarke inuu ku baxay dhibaatadii ka timi doorashadii bishii March 69 dhibtii ka timid ayuu eersaday wax iska fara badnaa si kooban markaan u soo qaadno daadar waxa yimid ciidamada yimid oo hogaaminaya Maxamed Siyaad Barre asagana Allah uu naxariisto hadda waa ognahay wixii yimid ayadan wadaaga cilmiga ku dhisan baa la qaatay oo aanu ognahay ruushka laftiisa inuu ka tala bixiyo wadalkiina uma baahne uma bisle dhaqaale ahaan iyo shacbiyad ahaan Maxamed Siyaad qudhiisa lagu yiri waa laga tiri adeer dalalkii carabta oo anaga afgambiyada nooga horeeyay nidaamkaasna ku dhawaaqay baa qudhooda nala yaabay markaan suuratin saal la beenay oo culimadii la leeyay ayaa xagee baad u socotaan ma hada ayadoo research ayadana lama sameyn war systemkan la qaadanayo oo rabo ummad in lagu maamulo oo muxuu ahay ummad la rabo in horumar lagu gaarsiiyo oo ummadda la aaminsiyo aaminaan waxa la rabo marka horeba in muxuu ahay la sameeyo ma taqaana cilmi baaris lagu sameeyo ma ahan wax qof uu intuu ku riyoodo ama koox yar ay ayagu isiraadeen ama kursigiina ku ilaashataan ama waxa aad doonaysaan ku bislaysataan ku karsataan waa dhibaatooyinka jiray ka mid tahay waa laga yimid waxaad ogeyd baa dhacay oo jabhada qabiil ku wada salaysan oo aan political platform aan lahayn baa yimid waxaana ka dhashay waxa la yiraahdo waxaanu rabnaa federal waxaanu qaadanaa federal hadda federalkaano adduunyadu ka jira qarnigii 16aad buu Jarmalka ka soo ifbaxay Hindiyu ka jira qolooyinka diriska ka jira Mareykan buu ka jira war anaga ma la sameeyo waa aan qaadanay federaalka wax cilmi baaris ah federaalku aan qaadanayno waa kee maxaa dhibaatada waxaanu isku dilnay oo dalkayga ku burburisay analyze ma lagu sameey ma la baaray maxay tahay anaga waxaanu isku dilnay ma ahayn ideology mabda aan isku dilnay lama arko waxaanu isku dilnay adeegsiga qabyaaladda waxa way doonis qofeed ama damac iyo doonis qofeed oo salka ku hayo adeegsi qabyaaladeed way Soomaaliya oo sadbursi waxa halkaan dhigay wixii dadku ka dhaxeeyay baa la maamuli waay oo sida loo maamulo la garan waay oo muxuu ahaa cashuurtii gudaha laga qaaday deyn iyo deeq wixii dibadaha ka iimaanay baashi dawladnimadii baa la maaray waay ayadana maxaa intaas in la soo sameeyo oo xisaabta badan la sameeyo oo muxuu ahaa adeer suuratin saal la beenay maxaa u sabay Soomaaliya asalkeedii hore raacatay 99% bay raacatay 1% baa beeraleyka oo wabiyada jiinkooda degan dadku dawladnimada looma bislayn ingiriiskii intuu hayaan u bislayn Soomaalidu waxay wax loo Talyaanigu haysay wax loo bislayn waa la kala qoqobay markii koonfurta iyo waqooyiga isu yimaadeen oo bilaa sharuud la'aan ay reer waqooyiga yimaadeen ayagoo Soomaalinimadu ay ka go'an tahay ayay koonfurta yimaadeen hada dhagar baa koonfurtana dhagar baa timid waxba la isdaawan mariyo oo la farsamay waxaad ogeyd baa ka dhashay Soomaa hadda waxa la yiri ayadoo intaas oo cilmi baaris sameynaa federaal baanu qaadan war federaalkan yaa goor xagee leh shacabku waxa man la weydiiyay aftima laga qaaday number badan oo gobolada inta la isu keenay ma la yiri war niyo wax badan baanu eednay dimuqraadiyada eednay nidaamkii kale inta wadaagu eednay waa uu dalkii waa burburinay political platform malihin maxaan sameynaa ma la yiri maya waa mar walba 4 2 3 ay isu tagayso waxbay jeebku kala soo baxay jeebkooda riyadooda
hadda nidaamkan federalismka rag baa la yimid oo kaansaday shacabku wax la weydiiyey ama aqoon-yahanada ama siyaasiyiinta ma jirto dalkan sidiisu wuu u afduuban yahay nin kursi doone oo siyaasad sheeganayo siyaasaddu waa in dadka siyaasaddu waa xirfad la barto waa cilmiga laamaha bani aadamku la barto ka mid yahay waana tan kaliya hagta cilmiga laamaha kale intooda kale siyaasad mid hagta dhaqaalaha bulshada mid hagta laana qofkii aqoonba maahan siyaasadda adigu habka aad rabto inaad u kala dadka inay wax yeelaysan ma dadka in wax lagu yeelay ma marka aan taas ka nimaado mushkiladdu waxa keenay waxa weeye wixii baa masan lahaynba lagu salayma waxa federaal waa okay goboladan go'go'ina la isku keenay war Soomaaliya sideedaba waa isku isir af iyo diin iyo dhaqan wax kastoo bini aadam wadaaga ay Soomaalidu wadaagtaa ma aha dadka systemkan u dan u yahay systemka hadda leeyahay lagu dhaqo federalismka adeer dadkii ku fashilmay siyaasadda sooyaalka taariikhda siyaasadda Soomaaliya ku fashilmay ayaa dan mooday in waxaanu ay mataqaana Soomaali ku kala qobaan reer u kala qobaan wareeri hadda waxaana ka dhashay mushkiladana hadda ka taagan qolka Soomaaliya la geeyay waxaana ka taagan waxa uu horeeyay muxuu ahaa oo waxa iyaga meesha ku jaaftay Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariisto waxaan filayaa markuu hawshan bilaabay arintii soo dare markay fashilantay ayuu xoogaa meeshaas damacayr wuxuu ka jawxayo waxa isku dileen asaga iyo Cabdullaahi Kinkol Allah u naxariisto waa dhintay iyo muxuu ahaa Maxamed Abshir suullaayo meesha lagu soo kala tagay meesha markuu muddo joogo hadana doorashooyin baa la qabtay isaga cali jaamac iyo Adam Muuse iyo waxa isku dileen hadana Cabdullaahi waatiya muxuu maxad Adam Muuse iyo jaamac cali ilaa ceergaaba ay socdeen waa danba hadana la heshiiyay okay wixii hadana waati hadda la keen war nidaamkaanu ma ahay nidaam oo marnaba la dhihi karo wuxuu adeegaya danta Soomaalidu adeega ma nidaam marna uu adeega ma suuragalna ma dadka laga rabaa inay xisaabtamaan oo shacabku ayaa la doonaya in waxaas ka fikiraan nidaamkan cilmi baaris loo sameeyo wixii dibna loo eegi maasa Soomaalidu mar walba meesha taagan tahay isku dayda maxaad iridka kaga baxdaan waxaan maxaa ku maamushaan war maxaa la eeday aan dib u fiirino taariikhda maxay Soomaalidu eeday maxaa la mahdiyay soo neeyiraado Soomaarta ta wax la soo weydiinaa ma jirto tan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iminka dhex taagan arinta koodi horena ay ka timid qaliijka kale ka war wala arinkaasu arin culus way arimaha qaliijka maamul goboleedyada markii hore si ay ku yimaadeen waanu ognahay ayagoo aan rabitaankooda iyo rabitaan shacab lagu ma dhisin meesha kuma iman waxun baa meesha lagu karsanayo rag un baa jaafay federaalkuna waa la isu yeeriyay hadda waa la soo dhaxgalay ayagoo noocaas oo awalba qaab darro ku wada joogay baa hadana qaliijku yimid qaliijku hadee dal weyn oo qani oo muxuu ahaa dalalka la isku yiraahdo waana dal muxuu ahaa hadda qolooyinka Sacuudiga wada dhinac ka yahay qadar weyn kulay bardu waa arin u baahan in si guud looga wada tashaarto u baahnaa nimankan ku doodaya laftooda maamul goboleedyada dawladii baan wax weydiino ku qanci weyde arrin shaqaynaysa ma ayaga inta soo tagaan dawladda u tagaan muxuu ahaa madaxweynaha prime minister inta talada ka goodo ay ku warana goboladii waa kana waanu nimid waan soo nooma jeedaan sideedii ha taadeer isbarbar dhige qadar iyo inta kale isbarbar dhige anagu sidaan ayaan u aragnay wax lagu wado war ka jooge ama nabare waxa aanu ku raacayna nabare horta in la doodaas marka hore la geliyo laakiin ma ahayn qof walba inuu iska yiraahdo ama state walba yiraahdo inuu meesha u duso u dhunto taa waxay loo cadeynaysaa ama ay iftiiminaysaa inay Soomaalidu marnaba qarannimo ay diyaar u ah oo cid qarannimo doonaysa aan la arag oo qofku uu rabo mar walba meesha uu taagay sidoo asaga doonay u dhaqmo taana qarannimo lagu gaari ma halkeedana waa adag yahay aad buu adag yahay halkeeda ma waa arrin shaqaynaysa ma in qali markaan imaaraadka laftoodo ma ma dan la ma garat waliba waxaan qabaa cid kale xagga dambe in ka taagantay oo lagu burburinayo Soomaaliya iyadu qarinayso oo hawshaas aan fulin karin in ayagu matalaan baa suuragal baan qabaa ano laakiin wax walba qarannimada ka weyn in la xisaabtama fiican ugu dambeyn maxaa ugu baaqaysan waxaan ugu baaqi lahaa horta wixii hadda ishayo oo galmudug kale arinka inay muxuu ahaa wixii hadda dhici lahaa way dhicin waxa ka foolxun in qorin la isu qaato baa ka foolxun wax kale hadda u harsan ma jirto arrinkaasuna hadda waxa si calwiyay madaxa state-ka
markuu yiri muxuu ahaa markuu yiri anu waa iska qaraabanayna waa iska qaraabanayna ma hadalna weyn ma haddana markii wax kala war gudoomiyahaadii ku xigeenkaadii madaxweynaha gudoomiyaha haddana wuxuu yiri muxuu ahaa adeer qabiil bay raaceen adeer waa hadallada wax kiciyo way hadal qof adeegsada ma garat taa waxa way waxaan u aragnaa ma baa mid state-ka joogtay qaran Soomaaliyeed oo jirin way qabiil wax la qaadan kara ma waxa la markaa qoladan shacabka golaha baarlamaanka ama shacabka aqalka golaha shacabka iyo golaha wakiilada gobolada arrinkaas inay culays ka saaraan ay wax badan ka qabtaan ay dadkooda badbaadiyaan iyo nin kasta oo dabiir Soomaaliyeed ku jirto meesha waxa ka soo socda ka folxo waxa hadda taagan oo la isku hayo adeer inta shir ku qabanay waxbaan ridna xagaan shir waa isla kumbaan ka leeyo wax ka folxin baa soo socdo marka waxa leeyahay reer galmudug adeer dadku siyaasiyiintooda iyo aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo ururada haweenku adeer u sarakay ina samata bixisa state-kaas waxa hadda meesha ka jiro dadka is haysta hadda state-ku uma maqnay mana matali karaanba waxa ay ku hadlayaan qaarkood state-ku ma matali karaan waa aniga aragtidayda waxaan qabaa marka waxaan idin war isu taga oo aqalkii sare gobolada matalay iyo baarlamaankii iyo muxuu ahaa aqoon-yahanadiina iyo siyaasiyiintiina iyo waxgaradkiina iyo ururada haweenka iyo dhalinyarada inta u soo tagtaan war state-ka badbaadsade oo baashu yaan meesha hadda taagan tahay meel ku xun yaan la gaarsiin baan leeyahay wallahi arrintan way adag tahay dadka biyaha hoostooda soo quuso ayaga wax badan iska og hase yeeshee waxaan dhihi lahaa dawladda federaalku waxaanu ayagay hoos yimaadeen qaab kastaaba ha lagu dhiso waa wax ayaga hoos yimaado markay meel mushkulad ka dhacdo waxaan fiicnaa lahayd in wax badan isu geeyaan ay meel badan ka eegaan ay waliba ka eegaan xalka danta dadka Soomaaliyeed inay ka eegaan dadku is hayo aanay fiirin yaa is hayo hebel aanay dheen war dad shacabkan maxaa u dane labadooda se dadku is hayase danta shacabku yaa ku taagan marka dawladda dhexe hadda intay jirteen wax badan way qabatay xoogag badan oo fashilmay oo qaabab badan ku fashilmay oo nooc walbana waa adeena badan waa ku soo jeedaan oo wax badan qudooda dab raayo dib badan ku hayo ma raba xoogaad fashilmay waa nooc badan inaan dul joogsado soo qaadan ma doonayo ayaga qudooda marka waxa laga rabaa maamul goboleedyadu inay wax badan dhaxgalaan oo xataystaan oo muxuu ahaa isku dayaan kii qaldanna inay u aqal celiyaan u yeeraan ku dayaan marka hore inay wadada tusaan u baahan marka dawladda dhax waxaan dhihi lahaa ayada qudoodu ha abuurato ama ha aruursato adeer dad khibrad yaqaan oo shaqo yaqaan oo muxuu ahaa waxyaabaha qaarkood waxa taagan toli karo waxa imaan karana ma taqaana in isku daya sidii loo gaashaa malay ka fikiro in dadka aruursta ku tala maamul goboleedyada aanay ka dhaxbixino isku dayda inuu aqal celiso inta badan aanay sugin kaliya wax qaldamay qaladku intaanu imaan isku day in laga hortago wali hawshaada halkaas bay leedahay warsteedada halkaas nooca oo aan la noqon dad wada gaadgaadayo steedyada qudhoodana waxaan dheerahay dadal barasaabaa tihiin muxuu ahaa iska daaya muxuu ahaa in u dhaqa dawladii dhexe waxay leedahay in faraha la gashaan